السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتو هذا السلامي وصاحبكين ما نوادي لك سوون قدو ناكسن مقال عصب مقال كمان تو حكا هادلي doona sida aad thumbnailka ama ciwaanka baa ka soo aragteen youtuberka ugu waalan youtuberka ama maqaalkeena kaga hadli doono waa Benjamin Bennett oo waxa waa youtuber in badan loo haastay ama dadka ay ku tilmaami jireen inuu yahay youtuberka ugu cabsida badan ama youtuberka ugu waalan. Benjamin Bennett wuxuu YouTube-kiisa furay ama Gmail-kiisa uu sameeyay December 28 2013 saacada hadirta muuqaalkan aan duubayo wuxuu channel-kiisa soo geliyay muuqaal gaarayo 385 muuqaal waana iska normal markii youtuberada kale loo fiiriyo subscribe-na wuxuu haastaa 288 oo subscribe views ahaan wuxuu haastaa 28 milyan oo views wax ka badan. sidoo kale kofarka koro waxa u saaran 125 madax oo madaxiisa bis ah kofarka oo YouTube ku saaran. sidoo kale profile-ka hal madaxa u saaran micnaheedu xitaa markii la isku daro labadooda marka la isku geeyo waxay gaarayaan 26 madax. markii 26 madaxa u saaran YouTube-kiisa dhan profile-kii kofarka marka la isku daro. run ahaantii Benjamin Bennett waxa waay youtuber ay dad badan ka qayliyeen xogtiisa ama noloshiisa saxda ama real life-kiisa la soo ogaan waay. muuqaalada oo soo dhigay YouTube-kiisa waxay u badan yihiin muuqaalo asiga oo fadhiyo oo 4 saac soconayo 4 daqiiqo ma 4 saac. muuqaalada 4 saac soconayo waa isku wada ciwaan hal ciwaan ku soo qoray. halka ciwaan waxa waaye sitting and smiling macnaha waa la fadhiyaa waa la dhool cadeynaa. muuqaalada marka waxa kala duwan yihiin number u kala yeelaa sitting and smiling number 1 sitting and smiling number 2. muuqaalkiisa ugu horeeyay ee sitting and smiling oo ku soo qoro wuxuu soo gudbiyay 6 sano ka hor. muuqaalkaas markii wajigiisa ay fiirisay xataa uu yar yahay qof yar oo muuqda sida hadda wajigiisa uu yahay 2021 ma ahayn sababtoo ah 6 sano ka hor waay ama 7 sano ka hor la dhigi karaa hadii 2021 lagu daro. wuxuu soo galiyay July 28 2014 oo soo gudbiyay videogiisa ugu horeeyay oo smile aan kii ku soo qoray. marka muuqaalada uu ku soo qoro sitting and smiling waxa uu ka soo gudbiyay 300 oo muuqaal oo min 4 saac 300 oo muuqaal hadii lagu dhufto live-ka oo soo fadhiisto 4 saac waxay isku gaaraysaa 1200 oo saacadood. macnaheedu waxay tahay ninkan asiga oo fadhiya YouTube-kan wuxuu soo geliyay 1200 oo saacadood. muuqaalkiisa ugu dambeeyay oo sitting and smiling wuxuu soo geliyay January 7 2019. marka meeshaas waxa ku soo idlaatay 6 sano oo muuqaalo asiga oo fadhiyo oo dhool cadeynayo oo soo gelinay laga soo bilaabo 2019 wuxuu bilaabay Benjamin Bennett inuu banaanka soo baxo oo macnaha fadhigi ka soo kaco. okay ha ka soo kaco fadhigi muxuu sameeyay macnaha muxuu bilaabay macnaha ma vlog soo sameeyay oo magaalada aaday ma asxaabta ku soo dhawaada channel-ka u dhahay waa la soo baxaa banaanka la soo aadaa. muuqaaladiisa badana 4 saac ay soconayaan ama vlog ha ahaado oo banaan aadayo ama ha fadhiyo guriga 4 saac kama yar muuqaaladiisa waana live muuqaal ma idid garay ninka aadi inta kaliya oo ku fiican yahay intaas waay oo anaga noogu fiican yahay. banaanka markii la soo aado muuqaalkii 4 saac inuu ahaado la rabaa 4 saac muuqaal soconayo ma hadli karsid energy-ga ka dhamaanaaba 4 saac ninka wuxuu sameeyay marka hello welcome guys to my YouTube channel meeshii uu ka dhihi lahaa hal mar waxa lahaa hello guys macnaha waa la jijiida codka hello daasa waxa la jiida hal daqiiqo ama ku dhawaad adii 30 second oo kala la jiida welcome qaybta koowaad oo well aydan sidoo kale waxa la jiida 30 second ama hal daqiiqo. marka gashid meeshan waxa leedahay ninka aadaamooya masaajid oo imaamka yahay mise waxa waaye vlog duubooya 4 saac oo guriga fadhin jiray ciwaanada wuxuu ka dhigan jiray sitting and smiling. hadda banaanka markuu soo baxay muuqaalada dhan wuxuu ka dhigaa walking and talking macnaha waa soconaa waana hadlaa. sidoo kale youtuberkan Benjamin Bennett dad badan ayaa isku dayay inay muuqaaladiisa dabagal ku sameeyaan asiga ay fiiriyaan commentiyada loo soo qorayo waxabi dadka commentiyada soo qororto way ku wareersan yihiin dad waxay leeyihiin wuu waalan yahay dadna waxay leeyihiin wuu ugu talagalay. sidoo kale dad youtuber waxa jira dabagalay muuqaaladiisa 4 saac soconayo u fiirsaday si bal hadii wax oo faar laga qaban karo looga qabto. dad badan waxa jira youtuber soo qabtay in ninkan muuqaaladiisa muuqaal kamid ah oo ku dhex ooyay muuqaal kamid muuqaaladiisa in indhihiisa gaduud noqdeen. sidoo kale muuqaal kamid muuqaaladiisa in asiga oo live-ka ku jiro 4 saac soconayo qof oo albaabka soo galay haddana oo albaabkii qofkii ka baxay ayadoon qofkii la arkaynin. marka dadka qaar waxay dhaheen youtuberkan waa ilmo shaydaan. youtuberkan tiis dhan waa bili aadan maaha ma lagu tirin karay dhaheen ilaaha uu wuxuu yahay balse waxa u soo qaadanayno waxay tahay ama uga hadlayno in macnaha uu yahay youtuber ka duwan youtuberada kale. sidoo kale waxa jiro dad sidiisoo kale iska dhigay oo muuqaalo sameeyay sitting and smile. marka hadii aad YouTube-ka ku qortid Benjamin Bennett waxa ku soo baxayo boqolaal muuqaal kumanaan muuqaal
oo loogaga hadlayo youtuberkan dad way waalinyaha dhahayo dad dhahayo indiisa gaduud ay noqdeen dad macnaha boqolaal muuqaal ku soo bixayso oo lagu falanqeynayo sidoo kale waxa waaye ilaa hadda wuu wadaa oo muusan joojinin muuqaalada oo sitin arsmaalinka 300 ka badan ay sii marwayaan laakiin ayagoo isku wada xiga oo aan wax kale la suubinaynin 300 oo ka suubi 2014 ilaa 2019 ka saas uu suubinay meel kale muusan u bixin asxaabtiisa xataa tankis markuu dhahayo warqado inuu tankis soo qoro oo soo saari jiray meesha marka asxaabta muuqaalkan waxa maanta rabay inaad kula wadaago youtuberkaas marka maxay tahay wixii kugu yaabka badnaa youtuberkan maanta aan ka hadlayna aad ka maqashid insha Allah sidoo kale hadii aad ka hesheen muuqaalkan in aan youtuber sidaan oo kale taa way jiraan in aan ka soo hadlo hadii aad u baahantiina commentiga ay soo qori kartiin marka muuqaalkan intaas uu ku egyahay hadii aad channelka ku cusub tahay subscribe sar hadii aad hore inoo la joogteen waa ku mahadsan tahay marka waxa inoo balan muuqaalka muuqaal ku xiga waxa dhamaantii idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo peace